uu iskaga baxay goobta uu ka socdo shirka wada tashiga ee aayaha Soomaaliya looga hadlayo waxaanu madaxweynuhu uu eedeyn u jeediyay dawladda federaalka Soomaaliya iyo beesha caalamka faafaynta warkani waxay noo soo diray wariyahayaga Cabdicasiis Ibraahim Axmed Okay iyada oo magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya saddexdii cisho ay ugu dambeeyay ay ku maladsanaayeen isla markaana shirka mustaqbalka Soomaaliya ay kaga hadlayeen hogaamiyaasha Soomaalida ayaa madaxweynaha maamulka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo goordhawe shir jiraad ku qabtay magaalada Muqdisho waxa uu qaadacay shirkaasi isaga oo sheegay in shirka ay ka baxday Puntland wuxuuna eedeyn u soo jeediyay dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo beesha caalamka uu ku eedeeyay in ay hal mowqif ka qaateen shirka هذا يرو كوبان أو كسابسن قان ما أنت لسه صاري أو كسابسن جد سعودك نود الصوماليين إيوه دور الشهر الله وكني لحية طبعا قان كاسو أجارت الدولة الفدرال كا بيش عالم كنا يكو أي دي هذا ما كان كعد يو أنا كهذا مجا الدولة بنتلان إن قان كاسو يه قان أنا قان عن أقبلين كم بدحونا حنا وأيسن أهين وحا إيسو وكيشين ذكر بوتلان ذكر بوتلان وأفتباي قادين وعدين وهلين أنا هلكا waxaan u joogaa inaan iyaga matalo rabitaankoodana aan keeno meesha waxaan rabaa inaan meesha ka cadeeyo in waxa la isku hayo aysan ahayn gobol ka soo horjeeda iyo qabiil ka soo horjeeda wax ka badsanaya in ay tahay masiirka dalka iyo horumarka dalka markii aan 2012 doorashada waddankan ka dhacday waxa la filayay 4 sano ka bacdi in la helo dawladnimo iyo horumar ka wanaagsan kii 2012 waxa la rajeynay dadka Soomaalidu ay meel walba ay rabeen inay helaan matalaad shacbi ah oo dhaba inay helaan dawladnimo ka tarjubaysa rabitaankooda siinaysana waxay u baahnayd oo ay dawladnimo ka rabeen shacbiga Soomaaliyeed meel bay joogaanba waxay rabaan isku mid waa isku hadaf waana isku baahi waxay rabaan nabadgelyo waxay rabaan deganaansho waxay rabaan inay helaan caafimaad wanaagsan iyo waxbarasho wanaagsan iyo hooyo walba iyo aabba walba waxa uu rabaa waxa weeye in uu cunugiisu helo mustaqbal ka wanaagsan kiisa cunugu awooha u yahay uu helo mustaqbal ka wanaagsan midka isaga oo nasiibka u yeeshay Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa ka gaabsaday su'aalaha qaar oo ay weydiiyeen saxaafadda uu shirka jiraayid u qabtay caalamkii dawladdu waxay isku raaceen maxay tahay oo aad qoonsateen oo aad shacabka dib ugu celineysay Puntland ayaga ka heli doontaan kullay go'aankaasna ayaga sii deyn doona marka aan u oramayo go'aankooda si kastaba ha ahaatee xalka Soomaalida ee ku qotomay in go'aan laga gaaro mustaqbalka Soomaalida iyo nooca doorashada Soomaaliya ka qabsoomi karto sanadka 2016 dhabaadkiisa ayaa hadda waxa uu muuqdaa mid rajadiisii ceel ay ku dhacday Cabdicasiis Ibraahim Axmed Okay Universal TV Muqdisho